Salaamu calaykum daawadayaal. Meel kastoo dunida aad ka joogtaan, waxaan rajaynayaa inaad bad qabtaan. Wiilkan ayaa filanaya in loo dhalo 5 cunug, laakiin wuxuu ogaaday runta qaraar ee gaclisadiisa. Waa cadaalad in la dhaho Barbara waxay isbedel balaaran ku keentay adduunka Paul Zarvet kadib markii ay ku soo degday noloshiisa. Lamaanaha reer Montreal waxay ku kulmeen qadka tooska ah, laakiin arrimaha si dhaqso leh ayay ugu dhaqaaqeen nolosha dhabta ah. Kaliya 2 isbuuc xiriirkooda markii uu socday, Barbara waxay heshay war weyn oo ku saabsan quruxdeeda cusub. Waxay yeelatay uur. Xaqiiqdii Zarvetis aad ay ugu farxay uurgalkaas ay u soo wariday gaclisadiisa, isagoo ku bilaabay siinta hadiyada qaali ah, dhowritaan dheelitiran oo saa'id ah iyo dhaqaale fara badan. Markii ay 9 bil ku soo dhowdahay, calooshii aad iyo aad ayay u weynaatay. Isagana wuxuu filanayay 5 caruur ah, waxayna lamaanahani aad ugu faraxsanaayeen inay waalid noqdaan markii ugu horeysay noloshooda. Laakiin tani ma noqon doonto uur caadi ah. Barbara waxay qarinaysay wax aad u weyn, taasoo horseedi doonta niyad jab weyn. Intaanan gudagelin, subscribe-ka inoo saar adigoo riixaya calaamadda gaduudan, gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinadeena dambe. Barbara waqtiga ay arrintaasi shaacisay ee ah inay uur leedahay ayaa ku beegneed isdhexgalkii ugu horeeyay ee xiriirkooda, oo weli waxay ku jireen isbarasho nololeedka lamaanaha isku cusub. Keliyana 8 toddobaad ayaa gudubtay. Marka hore Zarvet filashadiisa waxay ahayd 1 cunug. Waalid noqoshadiisuna wuxuu la wadaagay waalidkiisa, oo iyaguna aad ugu farxay. Waxay rajeynayeen inuu aabba noqdo, iyagana doorkooda awowanimo iyo ayayanimo ayay ku hanweynayeen. Waxaana kaaga sii darneed markii Barbara ay u sheegtay Zarvets inay filanayso caruur badan oo ay waalidkiisa farxadooda waali sii noqotay, iyagoo ku soo noqnoqonaya gurigooda. Waqtiyadii dambe xanaaneyn fiicanna siin jiray gabadha oo inankooda qabay, maadaama isaga waqtiga intiisa badan uu shaqo ku maqnaa. Si kastaba ha ahaatee, qaabka ay isku bedbedelaysay caloosheeda ayaa ahayd mid xaqiiqa. Marka hore waxaa loo haystay 1 cunug inuu ku jiro, kadib 2 bil markii ay gudubtana mataana ayaa la filan karay. 5 bil kadibna 3 ayay isu bedeleen, iyadoo markii dambe iskaanka ay isi soo saartay ay ku sheegtay inay filan karayso 5 caruur ah, taasoo u horseeday lamaanahan inay bartooda bulshada ay dareenkooda farxadda ka muuqatay kula wadaagaan dadka u rajaynaya guusha, lana dareemaya wanaagga ay filanayeen, maadaama ayba yihiin lamaana qadka iska bartay. Asxaabta badankoodna ay tusaale ka dhigan jireen. Markii Zarvets ay farxaddii ka tambadatay, wuxuu aas-aasay koox Facebook ah si uu bulshaweynta ula socodsiiyo xaaladaha soo kordho ee ku saabsan uurka gacalisadiisa. Sidoo kale kuma koobneen kooxdan inay keliya ay ku horumariyaan warbixinadooda, balse waxay kaloo helayeen hadiyado qaali ah oo dadka ku xiran ay u soo dirayeen. Xitaa saaxiibkiisa ayaa la xiriiray shirkad ganacsi si ay kaalmo ugu siiso qoyskan korinta 5 caruur ah oo inaan wax fudud ahayn marka loo eego dhaqaalaha loo baahan yahay. Alaabaha guriga, dharka dhalaanka iyo xafaayadaha ayaa soo buuxdhaafiyeen armaajadooda, kuwaasoo taageerayaashooda ay u soo hadiyeynayeen iyagoo la dhacsan. Laakiin dadka waxaa ku jiray qaar aan hadiyado soo dirin, maadaama dadka ay isku mid ahayn. Waxaa ka mid ahayd dadkaas haweeney lagu magacaabo Laflame oo shaki galay, taasoo iyadana ay horay 3 caruur ah u dhashay, iyadoo la yaabtay iskaanka ay soo bandhigtay haweeneydan uurka 5 caruur ah lahaanshaheeda sheeganaysa. Maadaama ay la yaabtay iskaanka xilli dambe oo uurkeeda ah oo ay dhali rabto uu soo muujiyey 5 caruur tilmaamtooda, iyadoo laga rabay mar hore inuu arrintaasi caddeeyo. Intaa waxaa sii dheereed in hooyada dhashay 3 mataanaha ah ay waxaan caadi ahayn ula muuqatay in Barbara oo xaamilo ah oo aysan waqti ku filan ku qaadan sariirta si ay u nasato ka hor dhalashada ilmaheeda, maadaama ay sido 5 caruur ah. Waayo aragnimada haweeneydan waxay sahashay inay daba gasho xaaladda Barbara, iyadoo aqoon u leh in waqti badan oo sariir lagu qaato ka hor inta aynan la gaarin waqtiga ku suntan dhalashada inay qayb muhiim ah ka tahay ka hortagga dhiciska. Waxay sidoo kale ogayd in lagula taliyo dumarka leh uurka tirada badan ee mataanaha ah inay si taxaddar leh u socdaan bilaha ugu dambeeya, taasoo aanan laga arkaynin Barbara. Waxaa timid maalinkii dhalidda ku suntaneed. Barbara jirkeeda wuxuu soo bandhigayay muuqaalka astaamaha qofka dhali raba oo kale. Caloosheeda marba marka kasii dambeysa way soo fuuraysay, iyadoo la filanayo ilmaha inay soo baxaan. Ayaa waxaa ka soo jabsaday biyo sidii booyad dilaacday oo kale ah, wayna fuuq baxday. Bilowga foosha xanuunkeeda iyo qaabka hooyada uu uga qaadi doono isbitaalka ayuu isku diyaarinteeda ku jiray Zarvets, wuxuuna aad iyo aad ugu faraxsanaa.
in maalintaas ay ahayd maalintii uu heli lahaa 5 carruur ah. waxaana haysay sidoo kale xamaasad aad u badan. wuxuu soo gaaray isbitaalka isagoo soo diyaarsaday gaarigii uu ku qaadi lahaa gacalsadiisa. ugu horreyntiiba isbitaalka kama helin diiwaanka feelka uurka Berbera. marka xigta kalkaaliye caafimaad ayaa sameeyay baaritaanka dhiigga, waxayna banaanka soo dhigi doontaa runta naxdinta leh ee ku saabsan xaaladda Berbera. dhaqaatiirta ayaa u yimid Sarfeds, waxayna u sheegeen in gacalsadiisa aynan lahayn wax uur ah, wixii ay sidana ay yihiin uur ku taallo uun, taasoo uu keenay xanuun. isla markiiba wuu aamini waayey isagoo ku calaacalaya, iga daaya ciyaarta, wax walba waan soo diyaariyey, waxaan jeclahay inaadan mar kale sidaan oo kale igula kaftamin. waxaana loo diiday inuu galo meesha ay ku jirtay si looga hortago dhaawaca gaaray inuu sababo dhacdo kale oo xanuun leh imaatinkeeda. waxay dhaqaatiirta u sheegeen Sarfeds in qofka xanuunsadaha ah uu dareemo calaamadaha ah inuu uur leeyahay oo kale, taasoo maskaxdiisa ay hore ka aqbalayso. wax yar haddii aan kuu sheegno, xanuunkan wuxuu ku dhici karaa qof walba iyo xayawaanaadkaba. waana mid caloosha ay u bararayso sida gudaha inay wax ku jiraan oo kale. waana mid haweenka ka dhigay inay aaminaan inay uur leeyihiin, mana la xiriirta arrintan wax la yiraahdo dhicis. haweeney ku takhasustay xanuunkan ayaa waxa ay tilmaamtay in dhacdanan oo kale ay dhif iyo naadir ay tahay, laakiin waxay ku tilmaamtay Berbera inay tahay qof dambiile ah maadaama ay dareensanayd inaysan uur dhaba uusan meesha oolin, iyadoo wax nuxnuxsi ah aysan dareemi karin qofka xanuunkani qaba. sidoo kale waxay ku tilmaamtay qof rabay inay dhaqaalo iyo kolkoolis been abuur ah ay ka hesho ninkeeda iyo familkiisa. waa la xiray Berbera iyadoo la geenayo goob loogu talagalay dadka maskaxda dabacdo, laakiin ninkeeda ayaa soo booday Sarfeds. wuu ka soo horjeestay arrintaas ee ah in dambiilo lagu tilmaamo saaxiibtiisa, isagoo sheegaya in gacalsadiisa ay rafaad badan soo maraysay oo habeenno badan ay dhibtoon jirtay culayska saaran awgeed. wuxuuna sheegay inay iyaduba tahay dhibanaha dhabta ah. waxaa ka soo horjeestay fikirka Sarfeds dadka qayb ka mid ah, balse waxaa yimid oo warka caddeeyey qof qaraabo dhow la ahaa Berbera oo sheegay in dhacdadan oo kale ay hore ugu soo samaysay saaxiibkeedii hore Berbera. Sarfeds qalbijab awgiis ayuu istaaga uga dhacay. dadka meesha jooga afka ayay gacmaha saarteen. Berberana ceeb darteed ayay wejiga daboolatay, iyadoo aad moodo qof xanuunsan oo sakaraadkii ah. waxaana loo kaxeeyey meeshii awalba loo waday. ninkii difaacayna wuu ka niyad jabay. riyadiisa iyo rajadiisaba way dhimatay, laakiin waxaa kaaga sii xanuun badnayd Sarfeds marka qoftoo nolosha ku aaminay ay u geysatay khiyaano intaa la eg si ay u hesho hanti yar oo dunida waxba ka ahayn. la wadaag saaxiibadaada haddaad ka heshay qisadan. sabskraibkana waa dhankaaga. mahadsanidin.